waxaan rabaa inaan kula wadaago 6 qodob oo gundhig iyo aas-aas u ah dhibaatooyinka haysta ganacsiyada Soomaalida ee ka shaqeeya wadanka gudihiisa. Inta badan waxa la yiraahdaa ummadda Soomaaliyeed waa dad aad iyo aad ugu fiican isdhexgalka iyo waxaysiinta iyo isku damqashada. waxa kale oo aad iyo aad ugu qalabaysan yihiin habka ganacsiga ay u ganacsadaan oo ay xagga macaamil helida iyo la macaamilka aad ummadaha kale uga fiican. laakiin dhibaatooyin haysta oo ragaadiyay oo horumar u diiday xagga waxa jira maaragtay ganacsigooda. waxaana la yiraahdaa waxa ka ah amni darrada, lack of security. markii aynan jirin amni aad isku halayso ama aad maaragtay hubaal ah, waxa uu keenayaa markasti inaad noqoto qof aan self fadhiin oo ay dhibaato soo wajahda ama dhibaato ku dhacdo ama ka baqaya inay dhibaato ku dhacdo. marka amni darradu waxay ay had iyo jeer qayb ka noqotaa ragaadinta iyo hoos u dhaca arrimaha dhaqaalaha, waana mid kamid ah factorieska ugu waaweyn ee hoos u dhiga maaragtay arrimaha dhaqaalaha. qodobka labaad ee gaar u ah ummadda Soomaaliyeed ee haysta waxa weeyaan waxa la yiraahdo kaabayaasha dhaqaale oo aan jirin ama hooseeya, oo ay kamid yihiin jidadka iyo facility-ga laga heli karo airport-da iyo sida ay u shaqeynayaan oo mararka qaar ama jam noqonaya ama kugu adkaanaya. jidkuna dee una meelaha qaar wadooyinku ayna hagaagsaneyn, marka in uu meeshii ganacsigu kugu mari lahaa ama ay soo mari lahayd alaabahaagu ay dhibaato ka timaado ama ay mararka qaar ayna saxdii ahayn laga rabay, iyadna waxay keenaysaa in maaragtay inay keento hoos inuu dhaco ama caqabad ay ku timaado ganacsigaagi. qodobka saddexaadna waxa weeyaan aad inta badan u haysta meel kasto ay Soomaali ku joogto wadanka gudihiisa ha noqoto waxa la yiraahdo xafiisyo badan. xafiisyada badan waxa laga wadaa waa dad dawladda ka socda oo mid walba waji uu ganacsigaaga lacag uga qaadayo, isagii oo nidaam maaragtay ganacsigaaga la xiriiro oo cashuur ah wado. mararka qaarna lagu qasbayna laaluush bixiso si arrimaha lagu fududeeyo. markii aad adigu wax sharci raadinayso ama wax kala aad qabsanayso, lacag hadii aad bixiso waxa laga yaabaa in waqtigii ay kugu qaadan lahayd waqti ka yar wixii lagu qabto. markasta oo kugu maaragtay bataan dadka waji dawladeed wax kaaga rabay, iyada laftigeeduna waxay noqonaysaa culeysyo tiro badan. inta badan waxa la yiraahdaa qofka wax laga qaadayo waa in wax kamid lagu soo cesho oo jidadka loogu hagaajiyo oo amnigiisa lagu subo oo isaga lagu daryeelo. marka isaguna wuxuu toos u bixin karaa ama maaragtay ka qayb qaadan karaa horumarka iyo nidaaminta xagga ganacsiga. qodobka kale ee maaragtay keeni karana wuxuu la xiriiraa qodobkii hore oo ah waxa la yiraahdaa lack of confidence, inay kalsooni yari timaado, inay kalsooni yari jirto oo qofku kalsooni ku qaban inuu wadankiisa ka dhex ganacsado oo markasta yahay mid ugu taagan dhagax sidii ama fursad sugaya oo dalka dibadiisa ugu baxo, maadaama uu ka baqaya in ama isaga naftigiisa uu waayo ama ganacsigiisa ay dhibaato ku timaado. marka inta badan dadka wadankooda kalsoonida ku qabay aad bay u yar yihiin marka loo fiiriyo kuwa isla ama wadanka dibadiisa ku ganacsada. wadanka dibadiisa laftigiisa dhibaatooyin baa ka imanaya oo aad aragteen hadda wadanka South Africa oo ay Soomaalidu noqdeen dadkii indhafiiqa u sameeyay xagga ganacsiga. maanta dhibaatada lagu hayo waana sax oo inta badan waxa la yiraahdaa qofka waxaad barto lagulama tartamo.